maxaa loo baahan yahay nimayow dadkan annagoo kale waa aan iska dhicin qori aan haysanaa qori haystaan aan iska dhicin ceelashanadii ay degeen shacabkii ay leenayeen jidadkii ay go'doomiyeen yaa waxaa la leeyahay ummaddan hala dhameeyo jidadkooda hala gooy ummadda inteeda kale wadooyinkeeda waa furan yihiin. dagaalka lagu qaaday al-shabaab ee socda muddada bisha ku dhow ayaa gaaray halkii ugu sarreysay iyadoo ay dagaalka ku biireen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku matala maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. xildhibaanada hubka qaatay ee ku biiray dagaalka socda waxaa ka mid ah taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliya Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo hadda ah xildhibaan taliye Mahad oo ku sugan magaalada Baydhabo waxa uu sheegay in al-shabaab hadda jilceen oo ay bilaabeen inay xaasaskooda iyo caruurtooda u soo rartaan dhinaca maamulka Koonfur Galbeed isagoo sheegay inay tahay inay hubka qaataan oo ay israaciyaan. calayaan waxay leeyihiin dhaqankii hore waxbaan ka bedelaynaa shacabkii oo la hadlayaan waxay leeyihiin dhaqankii hore aan ku maamulayna waxbaan ka bedelaynaa waa laga bedelayaa tahdiid ma jiro wax leen kama qaadayo xoolaha waa ku kaasa ogow haddana intay u wareegeen macni waa afuufo hayaan maxaa loo baahan yahay dagaal u diyaar garoob waxaan iska xoreynaan u diyaar garown waxa waay aan ismaqaln. sidoo kale Generaal Mahad waa mid ka mid ah saraakiisha waqtiga dheer ku soo jiray ciidanka dawladda Soomaaliya kaasi oo xilal kala duwan soo qabtay aqoon dheerna u leh la dagaalanka kooxda al-shabaab. Generaal Mahad waxa uu sheegay inuu hogaamin doono ciidamada deegaanka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed isagoo reer Koonfur Galbeed si gaar ah ula hadlayay. dhinaca kalena dagaal xoogan oo ay xalay saqdi dhexe ciidanka danam ku qaadeen saldhigyo ay lahaayeen ururka al-shabaab ayay ku dileen 11 ka mid ah ururka al-shabaab waxayna halka ku gubeen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ururka al-shabaab waxaana maalinta ka dambaysa sii kordhaya jabka loo geysanayo kooxda al-shabaab. dhinaca kalena qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada maamulka Galmudug ku matala dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah dagaalka ka socda Galgaduud kuwaas oo sheegay inay difaaci doonaan deegaanada ay matalaan waxaana ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo muuqday furinta dagaalka wasiir ku-xigeenka warfaafinta Yuusuf Al-Cadaala iyo xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye kuwaas oo deegaanada ay ka soo jeedaan ay waqti dheer xoog ku haysteen al-shabaab. sidoo kale kacdoonka lagu diidan yahay al-shabaab ayaa u muuqda mid si xoogaysanaya oo shacabka iyo dawladdu isku si ugu diyaarsan yihiin inay u wajahaan cadawga al-shabaab waxayna taasi dhiirigelinaysaa shacab badan oo deegaanadooda ay al-shabaab waqti dheer haysteen. waxa waay aan ismaqaln booliiska meelu fadhina waa dagaalama ma jirto booliiska asiga dalka xoogga dalka Soomaaliyeed ka ah dagaala la aadi isdiyaari u diyaar garoob naqshadina keena naqshadii soo dajisaan qaabkii loo dagaalami lahaa ilaan adinka hadda nimankan gacanta difaacoodii ahay